السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسر هذا Grand Online Academy. أنا معي دكتور عبد الرزاق محمد إبراهيم. waxaan idinku bishaareynaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed waxaan idin bilownay course cusub oo ah treatment of acute malnutrition oo macnaheedu yahay sida loo daweeyo nafaqa darrada ku dhacda carruurta ka yar 5 sano. course-kaas oo muddo badan aad weydiinayseen waxaa maanta marti inoo ah oo sidoo kalena course-kaasi bixin doona Dr. Maxamuud Maxamed Ciise oo ah isaguna dhakhtarka howlgala magaalada Hargeysa. sidoo kalena aad uga barateen inuu halkan ka bixin jiray koorsada pharmacology ama barashada daawooyinka. marka doctor soo dhaw. waan dhawahay doctor aad baa mahadsantahay Cabdirasaaq iyo teamka Grand Online Academy. aad baad mahadsantahay. marka nafaqa darradu maxay tahay waa xanuun nooceeya problem sidee bay adduunyada ku haysaa. marka waxaan xasuusinayaa koorsadu way socotaa waxaan nagala soo xiriiri kartaa nambarada aan ku soo qornay videoga marka waa lagu diiwaan gelin doonaa marka wixii aad ka daweyn karto aad ka qaban karto nafaqa darrada ayaad adiguna ku qaban doontaa aad ku daweyn doontaa carruurta. doctor su'aasha koowaad aan ku weydiinaya waxa weeyaan waa maxay nafaqa darro? bismillah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah. doctor Cabdirasaaq aad baad u mahadsantahay marka koowaad iyo teamka Grand Online Academy. haddii aan ka hadlo nafaqa darradu waxa ay tahay nafaqa darradu waxa weeye waa ilmihii yaraa oo aan helin nutrientska ama nafaqadii jidhkiisu ku kori lahaa ee ku filnaa aan helin. marka nafaqadii baa qayb ah waa qayb uu aasaasi oo ilmaha yar uu qayb fara badan uga baahan yahay iyo in uu uga baahan yahay marka in yar oo kooban. marka kuwa macronutrientska la yiraahdo waxyaabo badan uga baahan yahay proteinkii baa kamid ah carbohydrateskii baa kamid ah waa kuwaasoo ilmaha yar mid kamidii ka maqan yahay ama dhammaantood ay ka wada maqan yihiin. marka ilmihii yaraa calaamadihii uu la imanayay ee ku dhacay amaba ka muuqanayay baa waxay noqonayaan in ilmihii yaraa nafaqa darrada ay ku keento inuu hagaaso stunting uu ku dhaco oo dhererkiisii iyo da'diisii ay markaa isyeelan waayaan oo carruurtii la da'daha uu ka gaabto ama aad uga yaraado iyo ilmihii yaraa marka caatoobaba ama wasting uu ku dhaco masalkii iyo muruqii iyo baruurtii markaa faadka ay meesha ka baxaan. waayo taas waxaa looga baahnaa nafaqadii uu qofku u baahnaa ilmaha yar ayaa korinaysa oo markaa jidhkiisa buuxinaysa. marka nafaqa darro waxaa la yiraahdaa markuu ilmaha yari uu waayo nutrientska ama nafaqadii uu jidhkiisa u baahnaa qayb kamid ama dhammaantoodba. sax waaye dhibaato intee leeg ayay nafaqa darradu ay ku haysaa aynu odhan karnaa dhammaan adduunyada haddaad si gaaran usii eegto dadka Soomaalida problem intee leeg bay ku haysaa? nafaqa darradu waxa weeye waa dhibaato weyn oo adduunyada markaa lala tacaaliyay la hadda inkastoo dadaalo fara badan oo la sameeyay waqtiyadii hore sidii ahayd laga soo wanaagsanaanay laakiin haddana waa problem taagan waliba gaar ahaan waxa weeye Afrika iyo dhulka markaa Soomaalidu ay degtaba waa dhibaato weyn oo taagan. marka waxa la yiraahdaa half kamid ah adduunyada oo dhan half kamid ah carruurta 5 sano ka yar dhimashadooda waxa keena malnutrition. marka waad garan kartaa dhibaatadu intay laagtahay adduunyada oo dhan marka half la yiraahdo under 5 waliba carruurta ugu badan tahay marka u dhimanaya ay dilaysana waxa weeye waa wixii ka yar 5 sano waliba gaar ahaan waxa la yiraahdaa 2 sano ugu horeeya ayaa ugu sii halis badan. sax way hadii la daweyn waayo ama la garan waayo oo marmarka qaar waxa jirta hadii in xanuunka la daweeyo waxa ka horeysa in la garto oo la ogaado dhibaato intee leeg bay keeni kartaa hadii ilmihii lagu daayo oo aan laga daweyn? nafaqa darradu waxay keeni kartaa dhibaato degdeg ah oo ah inuu ilmaha yar u dhinto iyo dhibaato fog oo xataa hadii uu noolaado lafteeda mustaqbalka saameynaysa markaa noloshiisa ama quality of life tayadii noloshiisa oo waxa laga yaabaa ilmihii yar in school performance-kiisu uu liito oo waxbarashadii ku wanaagsanaanin koriinkii maskaxda ay saameyso awood ahaan uu noqdo qof itaal daran oo ka liita ama ka itaal daran dadkii la da'dahayd. waxa kale keeni kartaa bada ilmihii yaraa inuu dhinto maadaama nafaqa darradan ay saameynayso immune systemka ama difaacii jidhka systemyadii jidhka oo dhan meel walba ay saameynayso inuu ilmihii yaraa u dhinto marka infections oo aanu gaadhinba marka waqti dheer baan u noolaan ay keeni kartaa. waayahay doctor malnutrition weyn maqalnaa markasta marka si ay bulshada ugu fududaato sidee baa looga hortagi karaa
preventionka ama ka hortagga maxaa aad kula talinaysaa dadka nafaqadarrada daweynteeda waxa ka muhiimsan ka hortaggeeda marka sida looga hortagayana waxa weeye horta waa in bulshadii la wacyi geliyo oo dadkii waxa weeye hooyooyinkii loo sheego the proper cuntada ku habboon carruurta yaryar sida xilligii naas nuujinta kale in la dardar geliyo hooyadu ilmaha yar naaska siiso 6 bilood ee u horeeya in waqtiga ababinta carruurta weaninka loo bilaabayo in la baro hooyada nafaqada saxda ah ee ku habboon ilmaha yar sidoo kale carruurtii even xataa nafaqadarrada yeelatay in la sameeyo markaa systemkii caafimaadka dhakhaatiirtii nurseski iyo midwiferskii dadkii dhammaan lagu train gareeyo inay markaa la tacaalaan ilmihi yaraa hore u gartaan kadibna markii hore loo garto hore loo daaweeyo waxaad ogtahay doctor maanta wadankeena meelo fara badan oo kamid ah dhakhaatiirba ma joogto waxa laga yaabaa even xataa meelaha qaarkood inay xataa nurses ma joogan marka shaqaalihi caafimaadka meeshii aanu dhakhtar joogina inay nurseski iyo ama waxa dadkii kale public health ka caafimaadka bartay inay markiiba garan karaan ilmihi yaraa proper diagnosis early diagnosis hore ay u gaari karaan oo garan karaan si horena loo daweeyo okay sax marka in hore loo dareemo oo la garto horena loo daweeyo way waa si fiican Victoria imika waxaad ka bilowday halkan Grand Online Academy course kaasi waxa weeyaan waa management ama treatment of acute malnutrition course-kan sidoo caawinaya dhibaatada hadda taagan ee malnutrition-ka ah sidoo caawinaya maxaad si course-ka ugu talagashay doctor waa su'aal wanaagsan su'aashaasi course-kan waxaynu ugu talagalnay maadaama systemkeenu wax ku bixinayo online yahay oo qof kasta gaari karo isagoo halkiisii jooga course-kan ujeedada aynu ugu talagalnay waxa weeye dadkii caafimaadka bartay nurseski waxa weeye goobaha fog joogay in ay markiiba garan karaan ilmihii yaraa nafaqadarradu ay haysay early diagnosis ay garan karaan heerka nafaqadarradiisa ma safiir baa ma waxa weeyaan mid mild oo dhexdhexaad oo halkan lagu daweyn karaa sidoo kale ay garan karaan halkee lagu daaweynaya system baa loo sameeyay nafaqadarrada la tacaalisteeda qaar baa jira safiir oo cusbitaalada ama xarumo loogu talagalay lagu daweeyo qaar baa jira outpatient oo ilmihi yaraa la siinayo nafaqooyin ama buskudyo oo marka gurigii uu la tagayo marka inay markiiba dareemaan sidoo kale markiibana ay daweeyaan oo goobtii ku habboon si gaar ah loogu talagalay dhammaan shaqaalaha la saaraya xooga dadka shaqaalaha caafimaadka si ay treatmentkii iyo carekii daryeelkii ay bixinayeen si uu gaaro patientkii u gaaro markuu daryeelkii patientkii gaarana waxaa yaraanaysa carruurtii dhibaatadani ay waxyeelin lahayd marka u dhiman lahayd amaba mustaqbalkooga dambe uu saameyn lahaa doctor aad baad u mahadsan tahay waraysiga aanu kula yeelanay intaasi waxaan kusoo gabagabaynaa waraysigan la yeelanay Dr. Maxamed Ciise halkana waa Grand Online Academy waxaan ka codsanaa videogana share garaysaan sidoo kalena wixii aad su'aal qabtaan xagga comments-ka noogu soo qortaan sidoo kalena koorsadu way socotaa isqoristu way socotaa marka waxa xoog la saarayaa dadka ka shaqeeya goobaha caafimaadka si ay u bartaan una garan karaan xanuunkan malnutrition-ka ama nafaqadarrada ku dhacda carruurta yaryar si aynu dhammaantiin wax uga qaban karno haddii nahay shaqaalaha caafimaadka intaasaynu kusoo gabagabaynaa doctor aad baad mahadsan tahay thank you very much thank you for your time halkaasaynu ku gabagabaynaa waad mahadsantihiin dhammaantiin and see you in the next videos